بسم الله الرحمن الرحيم. في دمو wanaagsan halkan waxaanu caawinaa inaan ku qabanno shir saxaafadeed ama shir jaraa'id kaas oo aan rabno bulshada reer Puntland gaar ahaan bulshada saddexda degmo ee doorashada berrito loo midan yahay inaan kula hadalno sidii aan maaragtay hore u cilaaminay qorsho wuxuu ahaa in maalnimada berri ah ay doorashada saddexda degmo ka dhacdo goliyaasha deegaanka waxaan rabnaa bulshada inaan ugu bishaareyno saddexda degmo dhammaan goobihii 80ka goobood ahaa oo codbixinta in agabkii iyo shaqaale weynihii ka shaqeyn lahaa doorashada iyo korjoogtadii ka socotay bulshada rayidka ah ay gaareen oo si nabad ah ku gaareen dhammaanna ay diyaar u yihiin in aroornimada 6da subaxnimo ay si toosan ugu furmaan muwaadiniinta reer Puntland ee codbixiyaasha waxaan ugu baaqaynaa inay doorashada u soo baxaan codkooda ay dhiibtaan si nabad ah ku dhiibtaan iyagoo raacaya habraacyadii doorashada qofka muwaadinkii waxa laga doonayaa inuu kaarkiisa codbixinta la yimaado iskana hubiyo in ay tahay goobta uu tagaya goobta codbixinta ee kaarka dhabarkiisa ku qornayd muwaadiniinta kale aan kaararka haysan aan codeynayn waxaan iyagana ka rajaynaynaa inay guryahooda ku sugnaadaan dhammaan saddexda degmo goobahooda codbixinta ilaahay idinka waxaan rajaynaynaa subaxdiina isku mar furmaan dadweynaha waxa la joojiyay si guud dhaqdhaqaaqa gaadiidka cidda aan haysan kaarka ogolaanshaha hay'adda doorashooyinka iyo ciidamada amniga sugaya khaasatan ciidamada amniga doorashada guud ahaanna waxaan rajaynaynaa in xisbiyada tartamaya aanay la iman goobta doorashada iyo goob ka baxsan toonna wax calaamad ah aanay jiri doonin wax ololo ah ay mamnuuc tahay arrintaasi shaqaale weynaha ka shaqeynaya doorashada guud ahaanna waxaan faraynaa in ay adkeeyaan shaqada ay hayaan mas'uuliyadda ay qaadeen ay ka soo baxaan dhammaanna waxaan faraynaa inay taxaddar dheeraad ah muujiyaan shaqadoodana libajibaaraan guud ahaan goobaha waxaa iman doona kormeer ka socda hay'ado kala duwan waxa laga soo tabin doonaa dhacdooyinka si toos ah waxa laga socon doonaa xarunta la socodka doorashada wax walba oo ka dhacana halkaas laga soo tabin doonaa waxaan rajaynaynaa in guud ahaan ay noogu dhacdo si xasilooni leh ciidamada amnigana lala shaqeeyo awaamirtoodana la fuliyo ilaahay idinka waxaan rajaynaynaa in si nabad noogu dhacdo guud ahaanna reer Puntland iyo gaar ahaan saddexda degmana aynu ku soo khatimayno doorashadii goliyaasha deegaanka waxay noo noqon doontaa dhacdo taariikhi ah aad iyo aad baad mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.